tuug ayaa noo soo dhacday maanta waxa weeye story time iyo sheekadii tuugtii noo soo dhacday ayaan idinla wadaagaya guys wax fara badan baad ka faa'iideysaan waayo mushkiladaha iyo imtixaanada noocaasna faa'iida lagala baxaa so fadlan ila wadaaga oo ila dhageysta sheekadan insha Allah saad faa'iido weyn uga baxdaan. Welcome to Asiya's TV show. So noqod wanaagsan walaaladay. Wadinka yaradahay waxaan laba video ban ka booday. Sababtuna waxa weeyaan sheekada weekend aynu ka sheekeynayno insha Allah aan jeclaaday inaan idin la wadaago. Waayo imtixaanadana waxa laga baxa faa'iido. Okay. Straight to the story. Hadaynu galno. Maxaa dhacay? Halkan aan deganahay agteeda. hooyo ayaan dhul uga iibiyay oo guri uga dhisay oo aan rabay inaan insha Allah iyadana soo wareejiyo Ingiriiska ka keeno halkan keeno. Okay? Unfortunately hooyo way xanuunsatay markaa waa loo diiday dhoof, dialysis ayaa loo sameeyay kaliya loo maydha. Ilaahay ha caafiyo. So safarkeedii saasuu ku baaqday. So at that time markaa ay alaabta soo dirtay at that time markaan ku yiri alaabtii soo dir oo inay soo gurto u diyaar garowday alaab badan bay soo dirtay. Okay? Iyada iyo walaalkii kulligood alaabtii gurigan ku xidhnay because alaabtu aad ayay u badnayd. Waxay ahayd ma garan karayo qiyaas magaalo dhan oo shandada karatoon you just can imagine yani reer dhan soo guuraya. So alaabtii gurigan ku xidhay. Okay? Alaabta halka guriga in badan bay ku xidhnayd dhibaato iyo wax kale toona maanu arag. So waxa dhacday dhowr maalmood ka hor in habeenimo aanu aragnay gurigii halkaas oo leerarku shidan yihiin. So waanu shakinay. Waanu eegnay aniga iyo waxaan ku ori waqti dambe ahayd. Waxaan isnaa okay mala idinka ilaabay leerarkii. It's not a problem. Subaxii dambe aan isnaa orto soo eego leerarkii soo baqtiya. And that's the time markaanu aragnay in gurigii la galay wixii oo shandada la wada jeexjeexay. Shandadu sibaday leeyihiin dhinacaas midi laga galiyay sidana loogu jeexay ilaa koonaha kale. Shandad kasta wixii ku jiray saas loo afrogay. Okay? Tuugtu horta waxay ahaayeen waa la badnaa. Hal qof ma ahayn, laba qof ma ahayn, saddex ma ahayn. Waayo sida wax yiraahdeen iyo alaabtu intay la ekeyd 5 qof baan ka bixi kareen waxa soo alaabay baaristeeda haday ku dhex jiraan 2 toddobaad. You understand? Allahu musta'an waxay sameeyeen marka waxaan ku garanay in la badnaa sida wax la yiri. Midda kale sida wax la yiri baaritaankii waxa ka muuqatay kadib inay ahaayeen dadku dad يعني أن توجه هنا دad ماركتي حاسدين توجنا وياهين because ألا بدن بيقاتين لكن وحنا هين دي توج ماركتي توج قريها ودعا إسكمير على استموه هينكا وحاهين dad قرني إن مش ألعب تطالو وأوغان إسوسوك حيستي أوغان وبارني أو إصلاحات وحبات كهلسان وفهمتين على كل حال because gurigiina aad bay u jijibeen albaabadii daaqadihii xitaa saqafkii way gooyeen shandadihii marnaayo dhan halkaas ku gureen si ay u banaystaan dhulkay wax ku baarayeen waa fahamteen. So guys waxba ku dheeraamayo alaabtii damage ku sameeyeen damage fara badan way sameeyeen alaab badanna way gurteen. Anigu horta yani arrimada noocaas walillahi alhamd mar hadii qofku uu aanu dhibaato ku soo gaarin aan ahayn alaab la gurtay waxa weeyaan alxamdulillah rabbil alamin waa fahamteen. Yani cid allaale cid imika wax loo geystay falka markii lagu kacay ma jirto oo aan ahayn dadkii waxa sameeyay wax isu geystay because maalin kasta waxaan ku ori wala habaaraya meel kasta waxaan ku habaar baa kaga socday inkaaro waa fahamteen.
waxay faa'iideen ma jirto. shandadaha waxaa ka buuxay dhar iyo weel iyo alaab guri. Okay, so waxaasna wax micnole maaha, ka badan baa la haystaa, markasta waa la soo iibiyaa. It's not a big deal. So sadaqa unbay u noqonaysa aniga hooyaday insha allah, khayr qabto barakaysan. alaabteedii bay ahayd iyo alaabtii walaalkii, so waxaan ku oriyay iyaka ajar baa ugu jira, laakiin dadkii waxaa sameeyey ayaa dhibaato soo jiitay. Okay, so guys, faa'iidooyinka rabo qisadaha noocaas in lagala baxo maxay tahay? Horta dee arrinkaa waa la daba joogaa. faa'iidada balintaanan ka hadal, arrinkaa waa la daba joogaa, dadkiina waa la garanaya, raadna waa la hayaa. Okay, in case halkan ay ka dhegaysanayaan. So waxa weeyaan dhibtaasoo kale waxay ku timid dadka waddanka usoo guuraya. haddaan la wadaago, dhibtaasoo kale waxay ku imanaysaa gurigaasoo kale. dee horta weak points baa jiray, meelo fara badan oo yacni ducufka jiray. gurigu wuxuu ahaa guri dhisanoo farta laga qaado cusub, alaabtuna iskaga xaraysan tahay. Okay, waardiye muu dhex fadhiyey because xaafad waa iska aamin. waata looga shakiyey ee loo leeyahay dadkana waa dad alaabta meesha ku ogaa. alright, waddankeena marka la joogo, systemka halkan dadku ku nool yihiin wuu ka duwan yahay systemkii dabadaha. alright, dabadaha cidna uma baahna waardiye. security system baa guriga lagu xidha, CCTV baa lagu xidhaa, alarm security alarmski baa lagu xidhaa ee bilayska ku xidhan. gurigaagii security alarm baa ku xidhan. haddii daaqad la jabiyo, bilaysku waa ogyihiin. waa garateen, anuu maraykan baan ka hadlaya. daaqad haddii la jabiyo, bilaysku waa ogyihiin because gurigaagii dhammaa securityga ku xidhan wuxuu ku tallaalan yahay xerada booliiska. waad garateen. marka haddaad xitaa adigii gurigaagii ka maqan taho la soo jabiyo, booliiska waa la socdaan, way iskeenayaan. marka halkaa aad bu ammaanku maasha allah tabaaraka allah u adag yahay oo u horumaray. alright, waayahay. lasanada insha allah jecla inaad kala baxdaan waxaa ka mida guys, ka sokow in wixii kaa baxa mar haddii naftaada ka badbaaday ay sadaqo ku tahay. taas xagga aakhiro iyo xagga ilaahay weeyaan. xaggii adduunyadaa timi. lessonska walaalayaal aad kala baxaysan waxa weeyaan securityga guryihiina adkaysta. iminka way jirtaa waddanka shariikado gurigaaga imanaya oo kuugu xidhaya security system dhammaystiran. Okay, CCTV baa guriga oo dhan lagugu xidhayaa. deerka waxaa lagugu xidhayaa wayarkii leyrhka ahaa aan cidi soo dhaafi karayn. Okay, oo yacni waxaan ku odhayay absolutely 100% ka haddaad ku xidhatid walaa tuug walaa. anaku dabad baan deganoo daayarba xitaa nafta noo keeno beerta cuncunaa. daayarku xitaa ma soo geli karayo. you understand? so waxaasoo dhan baa la samaystay iminka security system adag oo gurigaagoo dhan intaad ku xidho aad mobilkaaga ka wada arkaysid, keemaradihii oo dhan lagugu xidhayo. dabadii baad arkaysa guriga hareerihiisii meel kasta. Okay, so cashirkaanu ka qaadanay guys tallaabooyinkii laga qaadi lahaa mustaqbalka si ammaanka loo sii adkaysto. way ka yara farabadatay hal waardiye qabso because waardiyayaasha waddankuna oramay isaga badan yihiin. oramaduna waa fuleeyaal, ogaan bay u seexdaan. hadday tuugga arkayaan uu ag marayo way isnabaan, waxay iska dhigaan inay hurdaan. marka tallaabooyinkaasoo dhankaa iska faa'iidaysta insha allah. haddaad soo guuraysaan waddanka mansaan iyo dadka waddanka joogaba, super data sharikadda la yidhaahdo security systemkao dhan guriga way ku xidhaa. waa garateen, weliba advance yani heer sare absolutely tii dabadoo kale weeyaan 100%. security alarm waa lagugu xidhayaa. gaarigaaga waa lagugu xidhaya security alarm. maxay ahayd kuwa deerka waad samaysan kartaa. haddaad rabtid waxaan ku ori guys tallaabooyin fara badan oo kaloo dheeraada waad samayn kartaan si aad securitygiina iyo gurigiina u adkaysataan ammaankiisa. haddaad xitaa ka baxdid oo aanu waardiyo joogin, cid usoo dhowaan karta ma jirto. waayo guriga dabadiisii hareerihiisiiba keemaradu 24 saacadood waa shidan tahay. way duubaysa, way sawiraysa. adigii mobilkaagii baad kala socota. xitaa dad ka maqan tahay guriga, ciddii yaraad aragtida guriga ag maraysa waad sawiraysa. caddaymaad haysanaysa. tuugtii dhaqsa lagugu soo qabanaya, waa la garanaya cidday yihiin. ciddanba isku kaa soo eegi karaysa ma jirto. Okay, so guys aad bay muhiim u tahay insha allah
in la aad loogu dadaalo in la samaysto arrimaha noocaas. waa security systemka, waayarada, alarmska, CCTV-ga Somaliland waa la helaya, weliba u dhigma kuwii dabadaha perfectly lagugu xirayo oo dad professional oo ku takhasusay kuu xirayaan gurigaaga dhan. waad garateen, hala wada doonto insha Allah. maxaan u xoojinayaa arrinka? because guys insha Allah dad fara badan oo igu xiran warkaa intay qaadaan ayay sii gudbinayaan faa'iido ayaa uga soo baxaysa dad fara badan. haddii dhowr qof ay halkan isleeyihiin maxaanu ka faa'iidnay mawduucan, walaalayaal dad fara badan ayaa ka faa'iidaya, ma ogdin kumaankun qof ayaa ka faa'iidaya. marka insha Allah tuugtuna cashar bay ku qaadanaysa, waan isku kaa soo eegayn mar dambe. okay, markay ogaadaan gurigaaga dhan inuu kamaradaysan yahay oo sawiradooda daqiiqad lagu helayo. okay, marka guys insha Allah intaan waddanka joogay, this is the second time anigu dee tuugtan maan arag, lamanaan kulmin, balaaya aragtee ilaahayna nama tuso. laakiin yakorta dee insha Allah waa la daba joogaa, waa lasoo qabanayaa easily hawsha waa lagu jiraa. laakiin waxaan sheegayaa maalmihii horeen waddanka imi, yani CCTV-gan security cameraskan iyo dhowaan weeyaan, dhowaan baa waddankii lagu soo kordhiyey. 4 sannadoodii u dambeysayba aad yani waddankii waxaan ku uri mar kaliya maasha Allah kor u kacday horumarintii meel kasta absolutely. waayahay waddanka intaan joogaan mar kaliya ayaan yani gurigan anigu ku jiray tuugu usoo dhacday. waxaa maraan ku jiray guri kira ah. okay, dabadaa idinku qabanaya sheekadan. marka waxaan ku jiray guri yar oo kira ah oo cusub, isaguna brand new ah, laakiin deerku aanu ku wada wareegsanayn, deerku inta hore uun kaga xidhan yahay, halka gaari kaliyuun baa soo geli karayay. so living roomka fadhigoo kale daaqadiisu waxay eegaysa wadada gawaadhidu marayso. so habeenkii dadka lugeynaya halka daaqada hadday soo eegaan way arkayaan dadka TV-ga daawanaya. daaqadana daahyada igu xidhnaa, waddanka aqoon fiican umaan lahayn, waxay ahaayeen shabagyadii cadcadaaya khafiifka ahay la iska dhex arkayay. so halkaasaan fadhinay aniga iyo inantii shaqaalaha soo jeednay. markaa ilaa 12 baan iska soo jeednay, TV-gan daawanaynay. and then markii dambe waxay tii 12 waan seexanaya inantii. anaa filim baa markaa bilaabmay, movie 12 sano filimkana iska daawanaya, berito fasax baan homa shaqaynayo. 2 saacadood buu filimkii socday, 2dii buu ka baxay. anii ma ogi, intaasoo dhan waa nala ilaashanaya. markaan leyrkii baktiyey, TV-gii baktiyey, aan qolkayga hurdada iska tegay, sariirtii markaan jiifsaday, saasaan u jiifsaday dhabarka, weli waan soo jeeday. markaa quraan baan iska akhrisanayay, afka ka akhrisanayay. waxaan maqlay bum, yani dig weyn. marka maan is dhaqaajin, anigu halkayga iska jiifa, yani waxaan sareeyay si fiican u dhageyso waxaan waa maxay. and then haddana bum labaad baan maqluul u xisay. markii baan soo booday, waan fadhiistay, sariirtii baan dul fadhiistay. bum tii saddexaad, intaa sariirtii ka soo booday, aan albaabkii hurdada fura cararay baa daaradii guriga daaradiisiiba waxaan isku jiirnay inantii shaqaalaha oo iyaduna qolkeedii kasoo cararaysa, aniguna qolkaygii daaradii markaan isku jiirna bay igu tiri tuug baa daaqadaydii jebinaysa. marka inanta shaqaaluhu qolkay seexato ayay rabeen inay kasoo galaan, tiradooda maanu garanayn, way badnaayeen. marka daaqadaha waddanka waad aragteen dad badani bir garaa-idaa lagu xidhaa, ma ogtihiin, oo muraayadii laga dulgeeyaa. so way isu qabteen, birtii bay jebinayaan, yani waxay rabaan gebigeedba inay gidaarkii kasoo gooyaan. so waxaa bugta lagu hayo waa daaqadii la rabo birtii in laga fujiyo. birta marka la fujiyana quraaradiiba hadhow waa la jebinaya, waxay rabaan inay daaqada kasoo galaan. waa fahamteen? qorshahoodaasa ahaa. inantii markay igu jiri tuug baa daaqadaydii jebinsan, dib intaanu cararay aan qolkaygii hurdada ku noqday ayaa waxaan soo qaatay security alarm, sidaa looga saaro biin yar baa laga saaraa, qaylo badan waxaan ku uri 2 dhagood ku qarxayaan oo xaafadda dhan jaarkoo dhan maqlayaan, iyo toosh
waxaanan xasuusnayn maskaxday degdeg ay u fakeraysay yacni 1 second ayaan ku fekeray waan cararay tooshkii iyo baan soo qaatay qolkii inantu markaa ugu madoobaa way hurday tooshkii iyo security alarmkii markaan soo qaatay saan usii ordeen qolkii jabinayeen baan galay daaqadii baan tooshkii ku qabtay tooshka markaad iska horreysiiso aad qol madow joogto adiga lagu arki maayo laakiin iyaka laydhkii baa indhaha ka qabanaya ma ogtahay toosh weyn buu ahaa laydhkii weynaa flash oo kale u ahaa indhaha markaan kaga qabtay security alarmkiina aan shiday qayladii ayay wixiiba carareen wixiiba way yaaceen albaabkii ganjeerka oo qaybtiisa yare dadku ka soo galaan ay sii furteen ayay ka baxeen way carareen okay so alxamdulillah birtiina may jabinin oo way adkayd halkaa markay maraysay sheekadaan aragnay inay carareen qolalkii oo dhan baan dusha kasoo qafilnay daaraddii baan soo fadhiisanay mindiyihii guriga cuntada lagu karayna waa soo qaadanay mindiyihiina waa soo qaadanay 2 mindiyo daaraddii baan fadhiisanay anigii inantii halkii baan fadhinaa albaabadii oo dhanna dushaan kasoo xidhno waxaase hadday daaqadaha kasoo galaan qolalkaa ku dhex xidhnaadaan saacadda markaa waa goormo waa 2 habeenimo waad garateen waxaanu halkii fadhinay ilaa iyo 5 subaxnimo markii la addimay marba midba iska tukatay markaan tukanay waxaan sugnayntii qoraxdu soo baxaysay markii waagi baryay ayaa daaqadii living roomka fadhiga ee wadada eegaysay ayaan furo waxaan sugay cid meelaha soo marto waxaanu ogaanay markaa albaabkii guriga laga soo gelayay inay dusha nagaga xidheen marka maxay ku tala jireen inay guriga dusha nagaga xidhaan oo aanu bixi karayn daaqadana laga soo galo oo gurigiina meel aanu ka cararna ma jirto markaa subxaanallahi alcadiim balaayo idinku dhacday dheh soo ninbaa meeshii soo maray masaan kuna walaal naga fur albaabkan jeelka markaa firtadiiray oo furantay soo maaha walaa gurigan albaabkiisu furan yahan nahaa kuna tuug baa noo soo dhacday xalay korkay nagaga xidhan guriga soo gal fadlan naga fur wuu soo galay albaabkii dabaduu naga furay wuu iska tegey soo waan iska soo xidhanay albaabkii in yar subaxii markaan joognay anaa baxay waxaan qabtay dukaanka xaafadda u dhowaan tegey markaan sidaa u soo galay inankii meesha wax iibinayo baa wuxuu igu salaamay wuxuu dhahaa si xali matuug baa idiin soo dhacday ayuuba igu salaamay isagoo naxsan markaasaan yaabay aan ku ihi haa maxaad ku garatay musiir walaa xaafadoo dhan xalayto 5 guri bay isu mareen 5 guri ayay isu mareenoo 5 nin bay ahaayeen buu yidhi marka guriga caynkana markay marayeen mid jaarkayga xabad baa lagu riday buu yidhi oo askariga guriga ilaaliya xabado ku riday xabadaha waanu maqlaynay waa kaayaga markii laga baxay kaayaga markay ka yaaceen ay mid kala tageen ayaanu xabadaha maqalay markaasuu xalay xaafadoo dhan bay ku wareegayeen xaafaddu waxay ahayd markaa xira awr baan deganaa guri kira ah uu ahaa xira awr waad garanaysaan guys waxaanu jaarahay inaanu isu dhoweyn faadmo siciid waad garanaysaan ayaanu jaarahayn xaafad fiican bay ahayd oo kaale araga haddana waxaan ku uri maalmaha aad ba walaahi securityga yani xaafadahaasi u xumaa calaa kulli xaal sidii walilaahi alxamdu ilaahay juug dambena ma tusin markaasna waxayd markaan waddanka yimi iminkaa xigtay iminkana guriga cidlada ah ayay usoo dhaceen so anigu wax fara badan baan ka faa'iiday guys sheekooyinka waddanka juugtu way jirta maraykan juugtu way jirta burglarsku meel kasta way joogaan laakiin de way ku badan yihiin waddankeena gaar ahaan waxay ugu badan yihiin securityga guryaha ayaa daciif ahaa laakiin hal shay kala baxa videogan waa maxay guryihiina walaalayaal securitygiisa adkaysta CCTV maalgashada guri kasta haddii lagu xidho CCTV juugtu way dhammaanaysaa juug dambe ma jirayso because waxaa la helayaa caddayn okay mid kale guri kasta waxaad arkaysa taarkii baa ku xidhan taarkii barbed wireka la yidhaahdo af ingiriisiga ee makiinadaha le kaasaa guri kasta ku xidhan lacag baa ka gashay do you know isla lacagta kaa gashay ayaa kaa gelaysa kan iminka advanceka ah ee laydhka leh isku lacag baa kaa gelaysa marka walaalayaal insha allah halka faa'iido ee aan rabo insha allah inaan idiin soo gudbiyo waxa weeyaan security guryihiina kor u qaada maalgashada khasaare maaha maalgashada waa waxyaabaha ugu fiican ee aad maalgashan kartid weliba dadka guryaha ku jira hantida ay gurigooda iskale yacni you're a home
home owner haddaa tahay gurigaaga wixii kaa gelaya kaa galan securitygiisa adkayso xitaa gurigaaga hadduu yahay guri aad karaynaysid CCTV ku xidho iyo siliga leer kale waayo adiga xitaa gurigaagii anything dhibaato ku timaada caddaymaad haysataa you understand waddankiina waa lagu hayaa maasha allah tabaaraka allah weeyaan so I hope sheekada inaad faa'iido badan kala baxdeen insha allah tuugtana waa u khasaare videogaasi because CCTV iyo siligi leerka lahaa waa idin sugaya okay meel lama gaarayaan biidni illaahi tacaala so guys insha allah intaasaan kaga baxaya biidni illah wuu dheeraaday videogu aadna waa idin salaamaya until aynu ku kulmayno videoga dambe thank you for watching and thank you for your time